بعد أدين سلامي موقع كوحرمات أنا كوبا برديو شقوين كلو يكان 9 to 5 يا سايد حسلك أما شقوين كالصبح سيارك لقرا والشنطة قلب تركز بحال شقوين كعادي تكتير يا سايد حسل أما واحد أفصل ما نقوله شق دعيت برامات أنا كن باريزم كسمية ولي بقدر سكشن وكتبن بعربة إن أنا محتاج أنا كل الدول وحنا كون بيزكريا أنا ستوري ما دام الشق دعيت عن كسب بالعربي أنا أول شقة عادي 9 to 5 هذا مش شقوين كان على شقة عادي قاعد صبح يعني كل كذي قلبت كإيمان كذي الشنطة بدأت كذي ويكندك في ساعة كذي يو مركان بلاوي سايد حسل كيو أو جدار اسمه بدل بيزنس وين مركب بيزنس وين مرة بقينا هذا مسمى ما أنت هذا أو حي فول أنت بنت بعاي بيزنس عادي بانليا شقيو لكن شقة دعيت بنكسو كوبيا أو شقير بيشي حوالي كاسو كريسو إن جروث كريتين كدي من عاد بيزنس وين بديش بارامات استبر دقو وحنا كل دوانت هاي ما دام لغاية عدد بن مقالك دعوانيا الربع شقوين حمار جاي يكون دالين الربع إن أجي وحي ليهين سكيل بيست إن سمايستان وإيش هذا الليفل بيست يكون section 1 waa maxay 9 to 5 horta azlafa ana wax ma 9 horta erayga 9 to 5 waxa laga soo gaabiyay 9ka 919 subaxantii shaqada 9 ka la galo 5ta galabtii laga soo baxo asaliin waxa la dhahaa waxa ka timaaday boqortooyada ingiriiska barigii dadkii u shaqeyn jiray ee gumaysan jireen oo kale subaxantii 9ka la soo kiciyo 9ka shaqada bilaaw jiray galbihii bay dhiman jireen markaas loo bixiyay shaqadaas 9 to 5 asaliin boqortooyada kasbekaysan dad ay ku shaqeyn jireen dadna hada dunida hadda waa la isticmaalaa shaqooyinka 9 to 5 dadka ma jecla shaqooyinka 9 to 5 ayaga si kala baxo laakiin midka ugu dhibad waxa weeye waa tan xamaaliga waliba Soomaalida Yurub iyo qurbaha ku joogay وشقيتها وكلا أمازون وكلا وحاس إن خانة لقى شقيه تطبع شركة ضي بنجي وشقيه لكن ستيل بقى عن 95 وضعنا ساعة مرة هدي على شركة قبل وشقينيس محنا عن كل مركب كوح عن كل سحبة فيكس سلري مشاركوده وفيكس بفانت وواحد قوش تميسين عادي من حلقة ربع عند شنت بري أما اللحية بري وكونتراكتها كحلت إنها شقيتي وقلان بيش اللي لا تنبري إن عاد شو أب تميسين أو شقة تماد حد دكتور يوروب هدي عن فينو شقون كحمالية أو ميد عادي نورمال كانت بدل كشقين زمان دكتور بيش يوقف قف لا بكون يورو بقعد وطبعا قبل لا بكون لا بقول وطبعا قبل بكون سجال بقول وحكوا حرمتها dowladda lacagta markay ay ku siiso dad guryaha laga bixiyo kaleeda marka mushaarkaaga dowladdu ka yaranaysa hadda ana Belgium jooga mushaarka rafli waa 2200 qofka single-ka baa bil kasta la siinayo haduu 22 bari shaqeeyo because inta kale waa fasax waa weekend iyo weel bisha dhan macnaha ka wada 22 bari shaqeeya tabti ahad waxaan kale shaqo ma jirto hadii aad extra tour ma sheegay laakiin normal inta shaqeeya waxa kale aan ku saxba fixed hours weeye shaqooyinka waqti cadadan baa la shaqeeya waa leeyahay sababta 8 saac hadda meesha la shaqeeya extra hours la 10 saac sida 14 hours shaqeeya marka inta waxa aan ku yihiin fixed hours sidoo kale waxa aan ku stability waa shaqo joogta oo mataqana wax ku jaanan galay markas arkimiis macna wax cusub new things ma fili laakiin sayr hasalku waxa loo xamaas kulli waxa weey markas new things wax ku soo baxayo challenge badan markas baad face garanaysa xanuun badan buu leeyahay wax kasta kaliya sameeyay laakiin waxa laga yaabaa in machine-ka lagu saaciyo ama in gaariga wad delivery sameeyo adiga maalintii wax isku mid ah baad sameynaysaa latena boring bay iska noqonaysaa waxa aan ku saxba 9 to 5 ka limited income growth macna income-kaaga ma growth karaynayo ma fahantii wala qof 10 sano meel ka shaqeeyo still mushaarkana qadama laga yaabaa $100 sanadkii $100 ugu taro ama $20 hadda Europe oo kala lacag badan ugu sanad qof markuu contract joogtaa tabaamana laga yaabaa in €20 ugu daro sanadka dhan sanadka 20 goor marka lacag ku sii marka lacag joogtaa weeye oo la yaqaano macnaha ma firiisi gadaal baa ka arki doonaa saar hasalka uu ka duwan yahay asna karkar weeye bilaa qarsho kun baahelisa bilaa qaar waxay helmaysid marka challenge badan buu leeyahay ugu dambeyntii saaxba saarasi waxa weeye dependency on employer de marar bax ku tirsan mataqana qofka shaqada ku siiyay macnaha cabsi badan baa marka jiri karto you are always replaceable baa shaqada waa laga ceelin karaa shaqada waa lagu bedeli karaa soo marka is ilaaliso cabsi ba ku noolaanaysa waliba shaqada ku fiican shaqada aad rabtid income qofka ugu baahan kariya bills baa ku sugayo bill badresa ma sahlan marka qof baa ku tiirsan tahay markaas adiga bini aadan baad marba hoos joogtaa maalinta xanuusto laga yaabaa in lagu bedelo ama shaqada mar uu laga fayr karayo you never know marka inta waxaan ku soo koobi karaa waa shaqo amni ah dadka stable bay ku dareemaan ma fahamta mushaarka bilka soo helaysa bilka bil baa iska baxaysa shaqada lagu diro baa qabta laakiin growth kale ma jiro kornimo kale ma sameynaysa halkan baa tagnaysa okay side hustle muxuu yahay markaas sida saaxiib aan waxa af Soomaali u helay shaqo duceed weeye shaqo duceed baa la sameeyaa shaqo duceed baa qabsanaysa muxuu yahay markaas ko extra income stream horta sida waxa ku fiicsan waxa weeye adigoo 95 ka haysto shaqada aadi 95 ka in shaqo duceed misaal laga rabaa gadaal baan ku arkana qaabka insha Allah loo tusaalo kale shaqada 95 ka baada galkada marka guriga timaado naabir qaata soo kacay YouTube bilaawaysa waxa baad mataqaana web design ka baad baran shirkadii waxa France oo sida sameeyso graphic design baad sameeysa marketing baad sameeysa waxa baransa AI product engineering AI mataqaana automation baad baransa AI integration baad baransa macna shaqo income extra baad sameeysanaysa 95 ka adoo galinka dambana meel baa shaqo online ka tuuranaysa 500 300 waxan baad ka soo qaadaysa shaqo duceed taas Allah laakiin growth bay sameynaysa gadaal baa ka arkana ilaa wax ka heer ah shaqada weyn ka tagto kaay oo bisar oo kun waxa ku fiican tahay inaad taxbal waa flexible way ayadoo de adaa wax ka maamulanaya waliba dad wax adigu leedahay taas kale bashkiga baa ku dhiibay ee chatbot ismay baan ku iri hada team baan ila shaqeeyo oo freelance salaasala business ka shaqeeyo ee chatbot qabaan teamka qof kamid baan u dhiibay taas xilli hore shaqada soo galaya asoo shaqooyinka haysto galabkii habeenkii weekendiga flexible way adaa macna waqtigaaga sawiranayo adaa manage karanay 95 waa ayadoo ma jirto waqti joogtaa sidoo kale saxbad
skill based side hustle ama shaqo duceedka xirfad bay ku base gareyn ka kala mustal labor based buu iska noqon xirfad baa u baahan tahay xirfadaas baa ku tirsan xirfadna adaa iskale laakiin shaqooyinka kale 9 ka waxa laga yaabaa markasta lagu bedeli karaa machine baa xataa ku bedeli karo these days robotya soo baxaysa machine-ka mutaqaana maanta ka soo gurayo package-yada yurana hafta marka bini'aadan loo baahna laakiin tan skill based waa aqalga maskaxdaada markastana way ku raacaysaa waliba da wadda kale gurtid sarasla wixii way ku raacay laakiin maanta wadda kale gurtid shaqadii aad bangiga aad ka shaqeynaysa maanta kugu dambayso sidoo kale saxba waa risky but scalable way waxa ka wada shaqooyinka sarasla waa qatar laakiin growth bay sameeyaa way koraan ana waxa marka aan bilaabay youtube-ka iyo blog baan ku bilaabay sarasla ana shaqo caadi dabcan shaqo caadi ay isticmaali aan jiray 100 euro bishayga bilaabay 200 waa growth macnaha bil kasta I feel inuu income ii siyaadiyay marka aan bilaabay ma fahanti ilaa marka dambe aan ka baxay marka laga baxana muuqaalka dhimanaysa baan ku siinay macnaha ila iska baxday lama rabo 95 waa muhiim weey ana waxaan 95 waa inuu shidaal u noqdaa dreamkaaga macnaha hadda shaqada 95 income qofku u baahan bills baa ku sugayo noloshada ku dibanaysa dad waxa dhahan ka tag 95 ka oo dadka dhiirigeliya aniga nooc ah ka tagay marka laga tagay ku sheegaya 95 ka haysto xifdiso marka dadaal dheeri bitan u baahan tahay waayo dad waxa 95 ka de waqti badan u helmin saar asarka laakiin risk way saar asarka shaqada kama tagi karto okay marka secretary waxa uu hadlaa money comparison labada salary mushaaraad baa isbar dhigana 95 ka stable way asaga ma fahanti wuxuu fiican yahay asaga ma baqays ma fahanti subax shaqada aad waa soo qabsanaysa lacagtaada ku soo dhacaysa ma fahanti waa more stable way laakiin saaxib yaal saar xisalada wadaqana asaga wuxuu fiican yahay growth ku sameeyaa maana scalable income ku sameeyaa ku korea saalaas ku xalaya maanta programkaagu soo kale service waxa maanta ina laba client bisha heshid oo lacag soo gashay bis waxa ina 10 client oo lacag badan bila qaar waxa soo gali kara $700 bila qaar 2,300 ku sameeyaa bila qaar mushaarkiya ku shaqeynaa 95 ina buu ka badnaan karaa bila qaar kara macnaha waa 50-50 bar kasta laakiin waxa ku xiran tahay waxa sameynaysa marka laakiin growth baa sameynaysa you feel it ina growth sameynaysa adu business saxiya waa koraysa bid marka dambe money comparison ma saxba wali ku jirnaa shaqada hadii aad ka tagtay 95 income ka uu istaagaya maalinta ka tagtid oo ku dhamaatay income ka uu ka istaagay laakiin waxa ku fiican mataqaana saar hasalka system baa dhisaysa income ka ma istaagayo ma fahan system baa dhisaysa income ka ma istaagayo ma fahan way ku baygareynaya marka system kaaga ma dii xitaa mataqaana shaqada askale hadda ka tagtay xitaa loo aad ka shaqalaysid wali mataqaana shirkadii alahayd ku shaqayso because hadii shaqada hanan qaado team baa u dhiibso adiga iska xasanaysa wax badan ma qabsay marka uu ku baygareynaya xitaa hada isbitaal ku jirtid aniga waa soo tijaabiye marka shaqada xamaalka aad ku jirtid ama 95 ka ama meel aad ka shaqeynaysid maanta xanuunsidii lacag lagu siin maayo waa ka tagaysa laakiin shaqooyinka xitaa adoo xanuunsan baa laga yaabaa mataqaana in client ku soo dhacdo sariirta saar wax xanuunsan marka in client ku soo dhacaan shaqadada u dhiibtid ama adigu aad qabatid laakiin luqada ka jabtid waa ku dhamaatay 95 guriga aad joogtaa wadamada Europe kale way leedahay mataqaana meelo benefits laga qaato dadka mataqaana unemployed business meel laga helo way jira laakiin wadamada qaar ma haystaan meelo benefits laga helo ma fahantid laakiin Europe iyo America waxa laga yaabaa in xariis lacag unemployed benefits ka mushahar yar baa lagu siinay kii horma laakiin xoogaa waa ku noolaanaysa kan laakiin ka istaagmay waxa iska section 4 waxaan ku fiinaa marka freedom comparison macna xorriyadan isku bardhigayna labada xorriyad ba kala haysan laba adduun ba kala haysan waana ta ana ugu jecelahay qof kasta waxa dareemaya inuu taas sana jeclaan doono number 2 waxa saxbel waa time freedom wala business saxbel ama sarasa time freedom buu leeyahay just waqtiga aad dooranayo laakiin markaad ku jirto 95 ka waa in alarm aad ku xirtaa waa in shuftiga aroortii hadaagto in aroortii kacda shuftiga habeenkii baa la galaa 95 yada meelaha mataqaan laga xamaado 10 habeenkii baa shufta la galaya dad 6 ka galaan dad 2 ka galaan duhurkii xorriyad ma haysatid meel wax kama laakiin marka sarasa aad tahay time freedom ka uu yahay subaxdii hool ku saxad hawshaada qabsanaysa gelinka dama tuuranaysa adaa maamusha marka projectkaaga habeenkii duhurkii galabkii rafaad ma jiro kala had ma jirto waa iska seexanaysaa salaad subax marka soo kacid ba tartiib inta quraacad aad degsan jiinta iska aadid baad qabsanaysaa shaqadaadii sarasa marka time-ka aad u kala duwan yihiin waana mid ana ugu jecel saaxiib location freedom bay baxsa saaxiib yaal location freedom marka aan fiirno 95 ka ma la saaxiib location freedom waa inaan magaalada joogtaa meesha ka shaqeyso wax walba soo samaynaysaa laakiin marka business online yahay ama saddex yahay Kenya iska aadaysaa Turkiya iska aadaysaa Europe iska aadaysaa Tuula iska aadaysaa internet iyo computer oo baahan all you need those things oo baahan inaad shaqada aad ku qabsato sababtoo aniga December waxaan ka mataqaana Turki halkaas baan ku soo shaqeysanay waxba igama halaabin xafiiska xataa qaybtiisa halkaas baan isticmaalay subaxii shaqadii tagay tartiib ah qabsanay sidoo kale saaxiib yaal September tii la soo dhaafay waxaan joogay Kenya sidoo kale wadamada Europe waxba ma macnaha location shaqadeeda maanta aan ugu maxalna gaariga qaadan kara shir baan ka qayb galay afar bilood koor Bitcom Amazon conference week baa soo joog waa soo shaqeysanay eventkii wax ka qabka macnaha xorriyad waxa ay tan soo friend geography ba soo friend baa helisa ma fahanti madax banaani baa helisa tan macaan oo kale meel kasta aadin waa shaqada karta ayadan ciyaar laakiin tan kale ninteefka ma laha creative freedom baa leedahay shaqada ninteefka saxbal creativity badan laga rabo you do that you do this macnaha waa taqaana wax kasta same thing was boring way laakiin ninteefka ma taqaana creativity badan baa baasaysa xirfado inaad baratid soo kale xirfadaha marta waxa kamid ah marka online business bilaay waxaan soo bartay e-commerce-ga waxa bartay
video editing waxa badan taqana blog app loo sameeyo Google AdSense batay basic graphic design basic waxa badan web design ka podcast badan baa daawan jiray book badan baa soo akhrisan jiray ana growth baa sameynaysa aqaliyan baa growth sameynaysa aniga aan fahmin beerso wax challenge kale baan jeclahay soo marka shaqooyinka mentorka kadib business weyn buu akay isku bedelay laakiin mentorka markaa ku jiray challenge me aniga taas baan jeclahay wax challenge kale laakiin mentorka wax ku challenge kale malahan mostly hadii wixii gacan la qabanaya hadii aqal ma jira baan wixii gacan la qabanayo kartoomo la xirayo kala laga qaadayo baawur la wada kulde wax badan creativity badan ma helay sida maskaxda ma tababaranayso laakiin coding baa website baan ka istaagayo code baa u baahan tahay shaqaaleysiinta hadda marka bilay wax xustaa boog la waxa ku psychology of money hiring ka podcast badan baa xataa bakris marka shaqaaleysiin macnaha adduun wax markasta mowduuc cusub baa ii furmay markas industry baa tagaysa growth fiican buu leeyahay sidoo kale sax income ceiling buu leeyahay income yada way kala duwan yihiin 95 ka marka cusub 95 ka shaqada waa joogto laakiin income ka way koraysaa marka wala sax hadii shaqada joogto caadiga 95 ka inaan sax bal noolaan baa laga yaabaa dabcan because income baa u baahan tahay marka waa very halis weeye hadii aadan meelaha qaar oo lacag la sii joogin success me honestly atas waa ku siinaya si daacadna roo inaan mataqaana shaqo ku siiyo ani ku dhihima shaqada ka tag dad wax ani shaqada ka tag cancel no waliga ani shaqada saaxiibeel ma ka tagin maalinta aan ka tagay ku sheegay shaqada meesha aan joogto laakiin shaqada ha ka tagin maxaa rabaa marka inaad samaysato shaqada ka tag koo horta mataqaana shaqada hayso keep you 95 ka shaqada hayso ha ka tagin waayo lacag u baahan tahay biil baa u baahan tahay hadda YouTube live camera u baahan tahay hadda bookings lacag u baahan tahay hadda course kidan enormous hadda seminar tickets ku waxa u baahan tahay gaariga shaqada adiga cunto u baahan ha cancelin 95 ka hayso lambar laba lane one skill baro hal xirfad baa baranaysa dadka waxaan soo aragay 95 markaan ka imaado wali mudxana 95 ki baskil baa u qaan xilli gaarimaysa waa marka Europe aan ku cusbaa 1 hour baskil 12 km electric baskil baa laga anoo day soo shaqeeyay 8 saacadood tamo 9 hour extra aan ku dirjiray haddana saacad aan soo galay baskil almost mudxana 12 saac ku dhaw guri ma jiro inta qadaya nabir qaadan jiray galabkii baa computerkayga soo fiirsan jiray ma fahmin qalabka dhidkana guriga iyo yaar waxaan ka gata shaqadeeda marka awslaak aad baa u xiiseyn jiray wax xasuusta anoo shaqada ku jiro maalinka dhan waxaan ka fikri jiray computerkayga markasta maxaa maanta qabanaya iyo ciladii ku heysay oo xalin kartaa very interesting bad exciting baa ku ah wax aan qabanayay macnaha niyad ahaan shaqada xamaaliga aan joogin waa ka maqanaa sometimes waxa la qaldan baa sameyn jiray maskaxdayda ma joogto laakiin hadda marka xasuusto awslaak ma taqaanaa inaa wax fiican qabtay baa markasta ogaa marka maxaa laga rabaa xirfad baad baranaysaa number 3 walk 1 hour a day maalinka saacad ama 2 saac ka shaqee maana marka naab qaadatid gal computerka gal xirfadaadii iyo shaqadaada kabo maalinka 2 saac hormari macnaha saraasalka shaqada cid weyn soo hormarisa weyn kor u soo qaadaa number 4 bul slowly si tartiib u dhis maadaama shaqa yar oo leent fadhiista degdeg tartiib u dhis مثلا xirfada u baahan baro qaalada u baahan akhriso daawo buugta u baahan akhriso podcastada mataqaana akhriso xitaa adiga fariiq u diri maalaya aan iska daa waqti halka geli shaqada waxa u dhaxaynaysa iyo gurigaaga all you need markaas inaad isbeddelayso waata marka meesha u dhimato aan dadka aan kula tahay goornina ka joojinaysa 95 kaaga goormee joojinaysa 95 kaaga dadku waxa dhan bilowga jooji no adoon xirfad lahayn oo income lahayn si u joojisa waa risk baa qaadanaysa waliba dadka family ku xireen khatar weey hada single taaba ugu fiican aniga marka waxaan joojiyay saaxiib shaqada codkayga maalinta income-ka xamaaligayga oo la ekaaday sayr xasalka iga soo galay laakiin 2,000 euro ku shaqeynay wadamada qurbaan 2,000 mar ugu shaqeeyay maalinkii dhowr bilood isku xigto oo 2,000 euro ii sameeyay business-kayga sayr xasalka shaqada cid buu xilliga yahay business ay ma ahayn maalinkaas baa kasan marka waxa siri haduu 2,000 ku soo saaray adoo shaqo aado war abood ada full time ka dhigatid maadaama part time buu yahay kan mid 2 saac ka shaqeynay maalin tabca 2,000 at least waa keeni karaa ma fahantin ugu yaraan waxaan karaa in kasto gadaal oo ka adkaanayo laakiin joogteen waxa u baahan tahay in qofku aan hata marka maalintu mushaarkaaga adin meesha ay ku xad 2 qasama hadii Soomaali aad joogtid bishi 400 300 aad ku shaqeynaysaa maalin saraaskaaga 400 ku sameeyo go hadaa keen jirtid bishi 600 amal ka qaanaysaa saraaska maanta 600 ku gaar go lijano laakiin marka goonaysa make sure in 3 bilood oo kale income oo meel ku yaalo ina isbixsa laga yaraa ma biilashaada inaad ka bixisa laga yaraa laakiin ina xoogaadi safe fiican leedahay shaqooyinka inta wuxuu ku fiican safe ma laga sameyn karaa income joogtaa way marka safe sameeyso intaada kansalin go si hadii xaaladu kugu xumaato kale aad backup u heshid taas oo qaylin lahayd laakiin wuxuu ku yiri kale ku fiican shaqooyinka xamaaga lama waayo hatta hadii ka halaawdo xamaal kale aad laakiin tiimka kuma laado laakiin dadka permanent contract oo kale baa ka wada lacag meel dhigo waayo shaqada kuma laado kale shaqada booska ceyrisa kuma laado kale laakiin meelahan kale waa laga heli karaa shaqo maalmo aad turtido ku kabtid taas waa sameyn kartaa ugu dambeyntii marka shaqooyinka 95 waa badbaado laakiin shaqooyinka side hustle-ka xorriyad marka adiga kala dooro marka badbaado rabtay inaad ku jirtid xorriyad baa rabtaa isweydii 20 sano kadib xoog hadays ma hindun marka it's better in a system business sid hado sigbuut hada dhalinyarada marta meelaha qurbaajo kulli inuu guuraan bay rabaa laakiin marka ii madaxfiis oo kale inka ma haysta ay u guuraan inka ma laga baahan meesha inka ma laga qaataa soo marka 95 ka wuxuu dhisiyaa meel shaqada wuxuu ku dhisiyaa amni ku dhisiyaa iyo badbaado laakiin xorriyadda waa taas marka adiga wayna mid doorataa labada isku door laakiin saa muuqaalka blues aan kugu sheegay labadaba isku wad dhufan hadhow xub siibo marka saxda ku hesho marka ya saxbiil hadda ina faateen oo malay waxa kul duween shaqo duceedka iyo 95 ka maxay marka adiga kula tahay qorshahaaga waa maxay aniga
markii dambe xataa waa ka soo wareegay shaqo duceedkayga business caadi baan u gudbay hadda xafiiskan aan kala soo hadlay ilaa 8 qof baa ka shaqeeya mataqaanaa iskuulkeena kala duwan marketing leh web design leh video editor leh saaxiibayaal noo diyaariyo muuqaalo commercial wax kasta dadka diiwaan geliyo everything baa leenahay dad baan ka hirgeliyay anigana business sax bay noqotay marka adigana waa sameyn kara hadda aniga sameeyay aniga hadda sameeyay adigana waa sameyn kara laakiin dadaal ay u baahan tahay wax hal habeen loo gaar maahan wax dadaal ay joogto u baahan adigana korin badan baa laga bisbitay daba ilaahay ina talisa gaaro business ko barkiisay maxaa ka faa'iido muuqaalkan muxuu yahay qorshahaagu management ka joogta mise waxa weeye waxa rabta inaad saanaad samayso business aad baan salaam